السلام عليكم daawadayaal dhammaantiin waa idin salaamay waa inoo casharkeena 66 ama lesson 66 wuxuuna ku saabsan yahay fruits ama miraha ayuu ku saabsan yahay marka miro iyo qudrad way kala tahay miro waxaan fruitska ayaa la dhahaa oo la cuno macaanka dhadhanaanka leh ayaa la dhahaa vegetables na qudaar ayaa la dhahaa casharkan midka ku horeeyay ayaan kusoo dhignay marka casharkan aan maanta qaadanayno waa cashir cilmina aad ka helaysid waxyaabo fara badan aad ku kala baran doontid insha Allah sidaas ayaa ku rajeyn doona waxaa la arkaa fruit aad jeceshahay meeshaan ka aragtid fruit aan neceb tahay midka aan neceb tahay midka aad jeceshahay waana la wadaagi kartaa magaciisa asoo English ah ayaan nagula wadaagi kartaa comment-ka marka mid walba sawirkiisa ayaan soo qaatay sida uu aqoonsatid hadoo fasiraada iga yar warartan aan fasiri waayo adiga ay fasiri sawirka waa aragtaa banana moos markuu mid yahay bananasna markii ay badan yihiin mango marka ay hal tahay mangoes marka ay badan tahay laba iyo wixii ka badan coconut qumbe ama qumbo ayaa la dhahaa coconut marka uu mid yahay coconuts marka ay badan yihiin ayaa la dhahaa coconuts marka ay laba iyo wixii ka sii badan yihiin coconuts ayaa leedahay coconuts apple tufaax apple waa tufaax marka uu mid yahay applesna waa marka ay badan yihiin tufaaxyo ayaa la dhahaa apples guava waa zaytuun Soomaalida sida ay u taqaano guava zaytuun ayaa la dhahaa sawirka meesha ayuu saaran yahay mid cad iyo mid gaduudan buu leeyahay sigana papaya na waa baybay papaya waa baybay Soomaalidana sida u badan ma ogo qudrada faa'iidooyinka ay leeyihiin way yara fududeystaan way sahladaan badankeena maxaan ka fikirnaa ma dharagnay qudaarta muhiimad weyn ayay leedahay mar walba qudaarta xooga saara avocado marka ay mid tahay avocados marka ay badan tahay orange waa marka ay mid tahay liin macaan marka liin macaanadan aad aragtid ayada ayaa noocyo fara badan ayay leedahay oranges marka ay badan yihiin ayaa la dhahaa mandarin iyadana waa nooc orange-ka u eg balse orange-ka way ka yar tahay wayna ka dabacsan tahay mirana ma laho marka san u kala fiiqdidba iyadii ayay maqaarka ka kala dhici mandarin ayaa la dhahaa wayna kuskuusan tahay yar tahay qolof jilacsanna way leedahay wayna macaan tahay mandarin ayaa la dhahaa tangerine maxaa waaye mandarinka ayay ka yar weyn tahay waana ka yar dhanaansan tahay qolofta korana way adag tahay midda kale way macaan tahay tan miro way lahaani kartaa mana lahaani karto midan maxaa la dhahaa tangerine mid hadeetina mandarin liin macaantana orange ayaa la dhahaa grapefruit ayadana waa nooc liin macaanta leh kamid ah grapefruit liin macaanta leh kamid tahay liin bambeelmana way u eg tahay mana u eko marka adiga ii sheeg grapefruit liin bambeelmo may kula eg tahay mase si kale ayay kula eg tahay waxaan dhahnaa liin macaaniyada ayadaaba noocyo fara badan leh midan waa arkaysaa grapefruit-ka waaye sidan ayay u taal marka midan bambeelmada miyaa liin macaan ahaan ma loo xisaabaa marka nala wadaag comment-ka nagula wadaag grapefruit sawirka waa aragtaa umaleeyaa siday u taalo pomelo aniga ahaanteyda liin bambeelma ii tahay pomelo liin bambeelma ayay ila eg tahay adiga daawada maxay kula eg tahay sawirka waxaan u soo qaatay waxaa waayay aniga af English ahaan idinku baro adinkana af Soomaali ahaan igu bartiin ama meeshii aan qaldo af Soomaaliga aan ka qaldo adiga ii saxdid
ama adigaba aad dadka daawadayaalka kale ka saxdid. Pomelo waa liin bambeelmo. Soursop waa canuuni. Soursop canuuni waayay waa bahal oo jilacsan, maqaarkiisa markuu bislaado oo karo gacanta markaasaan u gelisid wuu jilacsan yahay, wuu dhacaan daadana wuu macaan yahay markuu karo. Kanna maxaa la sugar apple ama custard apple. Asigana canuuniga ayuu egyahay, balse canuuniga wuu ka dhadhan dugan yahay, wuuna ka shir dugan yahay. Sugar apple. Jackfruit af Soomaali kuma kasaayi, adiga haddaa ku kasaysid inoo sheeg. Dragon fruit waa aragtaa umaleeya sawirkan. Bahashan waa miro ama fruit fiican oo maasha Allah waxyaabo fara badan u fiican caafimaadka u leh. Tamarind waa raqay. Adiga hadda waa yaabantaa umaleynaa raqay sidee fruit loogu xisaabay. Fruit maxaa la dhahaa? Wax walba oo mir leh ayaa la dhahaa, ama mir ka bilowday ayaa la dhahaa fruit. Tamarind mir ayay leedahay ama laf ayaa ku jirto. Cantaloupe adiga hadda af Soomaali ku kasaysid inoo sheeg. Watermelon waa qaro. Marka uu mid yahay watermelon ayaa la dhahaa. Marka ay badan yihiin watermelons ayaad dhihi. Watermelon qaraha midka fruitka anaka si fiican u garanayno Soomaali markaan nahay aan ku faano waa qaraha. waa wada garanaysin midkan liima sheegayo mana lii fasiraayo, fasir uma baahnidiin. Grapes waa canabkana asigana intaasoo nooc ayuu kala leeyahay. Cagaar ayaa jirto, midkan basaliga ayaa jirto, midkaas kale madowga ayaa jirto. Waana miro ama fruit caafimaado fara badan leh, vitamin C ga ahaato iyo waxyaabo fara badan oo jirkaada u baahan yahay. Fruitka dhammaantoodaba laga helaa, wayna sii kala fiican yihiin, sii kala dudugan yihiin. Kuwa meel u fiican yahay, kusii u fiican yahay. Pineapple waa cananaas. Pineapple marka uu mid yahay, pineapples marka ay badan yihiin. Cherry waa aragtaa mirahan yaryarka ayaa la dhahaa. Aniga si fiican uma garanayay, walba waa la arkaa inaan mar cunaa, la arkaa inaan cunaa, la arkaa inaan arkinaa, la arkaa. Adiga ma aragtay weligaa? Cabitaanaad shiidan kartaa, waa cuni kartaa. Strawberries waa strawberry af Soomaali adiga inoogu sheeg. Strawberry waa marka uu mid yahay. Strawberriesna waa marka ay badan yihiin. Date waa timir. Timirta ayadana miraha ayay ka xisaabsan tahay. Mirta lafta dhexdeeda ku jirta awgeed ama miraha ay dhashay, ama fruit maxaa la wax oo korkooda la cuni karo jilaac laftana gudaha laga tuuraayo ayaa la dhahaa. Passionka intaas dhowr nooc ayuu leeyahay. Midkaas kor jiro waa dhanaan, midkan hoos jiro macaani dhanaan, midkan kalena waa macaan. Passion fruits waa intaas nooc ayaa arkayso. Peach ayadana waa bahashan sawirkeeda aad arkaysid ayaa la dhahaa peach. Kiwi fruit dhammaanteen ama in badan way garanayaan umaleeyaa, ama waa taqaaniin ama waa ka saysiin. Kiwi fruit. Pear asigana waa bahal tufaax camal u eg. Marka la ruugaayo tufaax camal ayaa u ruugi, balse tufaaxa wuu ka yaraa dhadhan dugan yahay, wuuna ka yaraa qarjawsan yahay. Marka ruugaysid qajajac waa bahal macaan badan. Asigana kawar jiri ama kawar raadi ama kawar doon. Lime
lime waa lindhanaanteena caadiga oo yaryarta cagaaran ayaa la dhahaa lime. Lemonna waa ayadana isla liinta waaye, balse liinta ayaa kala dudugan. Mid jaalaha midda jaalaha oo waaweynka kuuskuusan ayaa la dhahaa lemon. Tan yaryartana lime ayaa la dhahaa. Way yaryartahay wayna ka cagaaran tahay. Tanna waa jaalo wayna weyn tahay wayna ka biyo badan tahay. Lemon ayaa la dhahaa. Apricot asigana waa aragtaa midii hadeetii aan aqrinayna aan soo dhaafinay. Peach ayuu u sawir eegyahay, mana aha haddaa si fiican u fiirisid sawirada wax yar ku kala duwan yihiin. Pomegranate maxaa waaye baashaan arkaysiin, bahal korka ka adag oo miro yaryar oo kuskuusan leh ayaa la dhahaa. ayadana faa'iidooyin caafimaad ay leedahay. waa ka wardooni kartaa, waa soo ogaani kartaa. Blueberry asigana waa mid canabka u eg balse canabka ka yara dhadhan dugan oo ka dhanaansan ayaa la dhahaa blueberry. Blackberry ama blackberry. Marka blackberrygan ama blackberryga wuu ka dugan yahay kuwan kale. waa aragtaa adigaba sawiradooda ayaa soo dhigay. wax fara badan ayaa ka berries-ka fara badan. Raspberries asigana waa aragtaa markay badan yihiin ayaa leedahay raspberries. marka oo mid yahayna raspberry. Pida way aamusan tahay, marka raspberries ayaa u akhrini. Raspberries. Plum-kana asigana waa iska miro yar oo kuskuusan oo korkooda jilacsan kuwan camal. Peachka iyo apricot-ka aan soo aragnay wuu ka jilacsan yahay, dhanaan iyo macaan isku jiro ayuu leeyahay. hilib badan oo dhexda ka leeyahay. marka bahalkan ayaa laga hagaajiyaa jaamka kan oo la shiiday oo la sokoreeyay laga hagaajiyay. bahal waaye plum waa jaama ka hagaagsan kartaa, waa cuni kartaa, waxyaabo fara badan ayaa ku suubin kartaa. marka inteena badan fruitska xoogga la saaro, caafimaadkiinana ku dadaala. cashirkiinana inta wax ka barateen rajeynaya. fadlan haddaad kanaalkan ku cusub tahay subscribe saaro sidaad casharo fara badan ugu heshid insha Allah.